Wariyaha caanka ee BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa ka ruqsaystay hawshii uu ka hayay BBC-da muddo sanad ah, sida ay shaacisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Fasaxa sanadka ee Catoosh ayaa ka bilaabmaya 1 Oktoobar ee sanadkan 2008, waxa uuna ku eg yahay 30 bisha Sebteembar ee sanadka fooda inagu soo haya 2019. Tallaabadan ayaa u muuqata mid fasax dheer oo uu qaatay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh, balse BBC-du waxay ku sheegtay inay tahay ruqsad muddo sanad ah uu ka qaatay hawshii BBC-da. Madaxa laanta afka Soomaalida ee BBC-da Cabdulaahi Cabdi Shiikh ayaa sheegay inuu kheyr u rajeynayo Catoosh muddada uu ka maqan yahay laanta, isla markaana uu ku rajo wan yahay inuu soo noqon doono muddo sanad ah kadib. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhageystayaasha ay la socodsiin doonaan haddii uu isbeddel ku yimaado xilliga Catoosh uu soo noqonayo. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa ka mid ah wariyaasha muddada dheer ka shaqeynaya laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, gaar ahaan xafiiska Nairobi. Sidoo kale waxa uu caan ka yahay baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook oo uu ku leeyahay taageerayaal.